calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asxaabta qiimaha qaayaha badan aad iyo aad baan idin salaamayaa. Subax qurux badan ayaan idin leeyahay. Waxaan soo gaarnay casharkeeni tobnaad ee barashada batantaha argumenteena labaad qaybtii tobnaad. Okay, qaybtiisa tobnaad ee quiz-ka. Hore waxaan usoo sameynay argumenteena koowaad qaybtiisa faahfaahinta iyo qaybtiisa quiz-ka. Sidoo kale waxaan hore usoo sameynay argumenteena labaad qaybtiisa faahfaahinta. haddana waxaa inoo socdaa qaybtiisa maxaa la yiraahdaa quiz-ka argumenteena labaad. Okay, waxaan maraynaa casharkeena tobnaad aan bilaaban. Insha Allah waxaan filayaa inaad wax badan ka faa'iidi doontiin. aan bilaabana casharkeena. In presenza del segnale raffigurato è necessario rallentare solo se provengono veicoli del senso opposto. Wuxuu yiri in presenza del segnale raffigurato signalkan meesha ku sawiran è necessario waa lama huraan u dhahay rallentare inaan speed yarayno solo keliya se provengono haddii ay ka imaanayaan uu yiri veicolo gawaari del senso opposto wadada anaga naga hor imaanayso false waay. xataa haddii baabuur kale naga hor imaanayna waa inaan speed yaraynaa mar walba qasab waay sababtoo ah segnale di pericolo alla. Okay, dopo il segnale raffigurato si può trovare un dispositivo acustico che avverte della chiusura della barriera o della semibarriera. Wuxuu yiri aspetta, necessario rallentare solo per falso waay falso verman ku dhifto su-aasha koowaad falso waay. Okay, dopo il segnale raffigurato si può trovare un dispositivo acustico che avverte della chiusura della barriera o della semibarriera. Wuxuu yiri dopo yiri marka aan allora il segnale raffigurato si può trovare waxaan kala kulmi karnaa signalkan un dispositivo inuu ku yaalo waxa uu dhahay acustico oo dhawaaqay que avverte kaasoo noo sheegay della chiusura inuu xirmayo della barrieraha o della semibarriera ama semibarriera. sax waaye sababtoo ah wax semaafar camal waaye ama dhawaaqaya oo dhiid wuxuu noo sheegay inay wadada xirmayso beer waaye. Okay, il segnale raffigurato pronuncia una stratoia con probabile difficoltà di incrocio con i veicoli provenienti del senso opposto. Wuxuu yiri il segnale raffigurato pronuncia signalka wuxuu noo sheegay una stratoia meel ciriiri ah stratoia ciriiri waaye. Okay, con probabile difficoltà oon kala kulmi karno caqabado di incrocio inaas dhaafno con i veicoli baabuurta kale provenienti kuwaasoo ka imaanaya del senso opposto wadada anaga naga horeyso maadaama wadada dhinac ciriiri kasoo noqotay baabuurta inay isku dhaafaan way adkaanaysaa beer waay. I pannelli raffigurati se con due pare e indicano un attraversamento ferroviario con due soli binari, no? Distanza waay kan distanza 150 metri 100 metri 50 metri waay laakiin due soli binari falso waay. Okay, il segnale raffigurato pronuncia un tratto di strada striscevole. Wuxuu yiri signalkan wuxuu noo sheegay un tratto di strada waduu yiri striscevole oo taraarax ah falso waay. Un stratoia un restringimento waay. Okay, in presenza del segnale raffigurato è consigliabile evitare lunghe soste nel tratto di strada interessato del pericolo. Wuxuu yiri in presenza del segnale raffigurato signalkan è consigliabile wuxuu nagula talinayaa evitare inaan ka fogaano lunghe soste waqti badan inaan gaariga meesha ku baakino nel tratto waduu yiri di strada oo wada ah nel tratto di strada waduu yiri interessato taasoo ku aanbaxday del pericolo halista maadaama wadada buuraley ay tahay inaan baakin dheer aan dhigano baabuurta aan ku dhaafno qalad waayo dhaveer waaye. In presenza del segnale raffigurato si può sorpassare a destra il tram fermo al centro della strada per la salita e la discesa dei passeggeri solo se esiste l'opposite salvagente. Wuxuu yiri in presenza del segnale raffigurato signalkan si può sorpassare waxaan ka baasi karnaa a destra dhanka midig il tramco fermo oo taagan al centro della strada wadada dhex bartankeeda per salita kaasoo rabaan inay koraan e discesa inay ka degaan dei passeggeri dadka solo keliya se esiste haddii uu jiro l'opposite salvagente hadduu jiro beer waay. Okay, il segnale raffigurato pronuncia un tratto di strada con pavimentazione
irregolare, falso è perché una cunetta laha, pavimentazione irregolare non waxaa waaye midkan godgodka ah waaye, okay? In presenza del segnale raffigurato è necessario regolare la velocità in relazione alla visibilità al raggio della curva, vero waaye perché in presenza del segnale raffigurato signalkan uu yahay necessario waxaa laga maarmaan ah regolare inaan hagaajino, aan iska habeeno, iska qurxino la velocità speedka in relazione oo inaan la xiriirino alla visibilità aragtida al raggio della curva, ballaca wadada ama maxaa la yiraahdaa awoodda oo kurvada speed ku wanaagsan inaa isticmaala, sababtoo ah adoo wadadan qolqolooc maraayo 100 ma ku socon kartid. waxaa isdhehaysaa 100 ku socotaa, waa jireynaa dhehe waa awoodi weyne gaariga speed ku socda waa sii baxay, baabuur kalaa ku dhacaysaa sooma. Quindi dobbiamo regolare, vero waaye. In presenza del segnale raffigurato bisogna considerare che la visibilità è limitata. In presenza del segnale raffigurato bisogna wuxuu yiri considerare inaan ku xisaabtano che la visibilità aragtida è limitata, waa mid xadidan maadaama dalcad meeshan ay tahay. Dalcad marka inta ka korayso gaari kale oo intaa kasoo korayo oo iska hor imaan rabtiin isma arkaysiin. Quindi la visibilità è limitata waxaa laga wadaa meel fog wax ma ka arki karna camal, vero waaye. Il segnale raffigurato richiede di procedere con cautela in presenza di pedoni anche se si trovano fuori dalla carreggiata, vero waaye. Il segnale raffigurato richiede wuxuuna weydiinayaa di procedere inaan ku socno con cautela, xasilooni ama deganaan, cautela maxaa la yiraahdaa prudenza, attenzione, waxaan oo dhan una cosa così similar, okay? In presenza di pedoni maadaama ay jiraan dad uu dhahay ay jiri karaan, anche uu yiri xataa se si trovano haddii ay joogaan fuori dalla carreggiata, wadada meel ka baxsan. Mujeedaa gaarigan inta uu soo socdaa, dadka hadday meeshan ku lugeynayaan oo kale gaariga xoog u socdo, lugihii shaalarka iyo markaa gaariga shaalaraysid taayarka iyo jaayga markay isqabtaan gaariga jaay u tuurtuuraa dhagaxmo yaryar, dhagaxmankaasaa laga yaabaa dadka inay ku dhacaan, marka beri kaloo waaye. dadka hadday laamiga ka baxsiin xataa dhagax wuu gaari karaa, marka inaad tartiib u socno waa vero waaye. Il segnale raffigurato pronuncia un tratto di strada deformata, vero waaye perché deformata, dissestata, irregolare, waxaan oo dhan isku magaca waaye, signalkana loogu wacaa, okay? In presenza del segnale raffigurato è necessario moderare la velocità per evitare danni alle sospensioni. Wuxuu yiri in presenza del segnale raffigurato è necessario waxaa laga maarmaan ah moderare inaan yareyno la velocità speedka per evitare si aan uga fogaano danni inaan dhibaato u geysano alla sospensione. Suspensiona waxaa la waxyaabaha gaariga difaacayo oo moolomoolada iyo biraha iyo waxaas oo dhan, okay? Vero. Il segnale raffigurato pronuncia un confluenza sinistra, confluenza iyo kana waxba iskama gelin, kan waxaa la curva, okay? Falso waaye. Asla fahmin sooma. In presenza del segnale raffigurato è necessario moderare la velocità in relazione alla visibilità. Signalkan waxaa laga maarmaan nooga dhigayaa uu yiri moderare inaan yareyno la velocità speedka, moderare, diminuire, maxaa la yiraahdaa cautela, waxaan oo dhan wax maxaa la yiraahdaa wax isku eg waa adi moderare inaan qurxino, inaan yareyno, inaan speedka ka taxadirno. In relazione anigoo la xiriirinayna alla visibilità aragtida maadaama wadadan ay buuraley ay noqon karto. Sidoo kale signalkan wuxuu dhihi karaa su-aal waxaa imaan karto dozo artificiale, okay? Vero. Il segnale raffigurato pronuncia un tratto di strada interrotto per alluvione, cosa c'entra? Falsissimo. Il segnale raffigurato pronuncia un tratto di strada che può diventare pericoloso in particolari condizioni climatiche specificate nei pannelli integrativi. Il segnale raffigurato preannuncia signalka wuxuu noo sheegayaa un tratto di strada wado che può diventare taasoo isku bedeli karta pericoloso, halis ama khatar, in particolare khaasatan condizioni climatiche, jawiga markuu isbedbedelayo kale specificate kaasoo lagu qeexaya nei pannelli integrativi signalka maadaama xilliga roobka oo kale taayiradu ay ku taraaraxayaan, xilliga barafka oo kale ayaa vero waaye.
ok? Nel caso di attraversamento ferroviario senza barriera o i pannelli A, che sono questi qua, sono posti prima del segnale B. Vero è, perché wuxuu yiri haddii ay dhacdo nel caso haddii lacala uu yiri attraversamento ferroviario aan goynayn wado ferroviaria senza barriera wadadaas oo lahayn barrieraha i baneelayaashu yiri A oo kuwana sono waxay ku aali karaan posto meeluu yiri prima ka horeysa del segnale B. Vero è, perché kan wuxuu kuu sheegayaa wuxuu ku yaalaa proprio meesha wadada marayso ama dhulka ama wadada dhexbartankeeda oo tareenka meesha uu goynaayo meel ku dhagan u dhow. Kuwana distanciometrica lahaa waxay ku sheegaan inta distance u jirto wadada oo aad goy rabto, okay? Quindi la risposta è vera. Il segnale raffigurato pronuncia l'accesso al pontile d'imbarco di navi traghetto. Falso è. Il segnale raffigurato pronuncia signalkan wuxuu noo sheegayaa l'accesso meel laga galayo al pontile punta ama meel yiri d'imbarco oo doomanka ay marayaan di navi iyo maxaa la yiraahdaa maraakiibta traghetto. Falso è. Semaforo noo sheegaa 150 metri kadib. I pannelli raffigurati sono posti prima di qualsiasi tipo di passaggio a livello. Prima di qualsiasi tipo di passaggio a livello ci saranno qualsiasi tipo di passaggio a livello. Passaggio kasta nooc walba ahaado, con barriere, con semi barriere, con senza barriere, waxaas oo dhan kuwan way leeyihiin uu dhahay. La risposta è vera, ok? Il segnale raffigurato può essere integrato con un pannello indicante tornante. Signalkan waxaa la socon kara uu yiri pannello oo ku qoran tahay tornante. Vero è, perché tornante wuxuu macnaha prima un tornante, due tornante waxaa waaye kurvooyinka cadadkooda intuu dhan yahay waay. Vero è. 1, 2, 3, 4 curva camal ya. Il segnale raffigurato pronuncia un cambio di corsia. Cambio di corsia falso è, perché waa una curva verso destra waay. Okay? Wuxuu noo sheegayaa 150 metr kadib inaan la kulmayno wado qolqolooca oo dhanka midig u qoloocanaysa. Quindi un cambio corsia falso è. Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo. Signalkan wuxuu noo sheegayaa inuu yahay signal halista qeexaya. Vero waaye. Restringimento estratoria laha kan sidoo kale la mid waaye. Il segnale raffigurato pronuncia un cavalcavia. Cavalcavia falsissimo e non c'entra un cavolo. Il segnale raffigurato pronuncia un sottopassaggio pedonale. Sottopassaggio pedonale meel dadka ay marayaan qaybtooda hoose. Sovrapassaggio, sottopassaggio la kala dhaha. Falso waaye, laakiin waxba iskama gelin sababtoo ah signalkan waxaa la restringimento delle corsie, ok? E della carreggiata. Quindi sottopassaggio falso waaye. Il segnale raffigurato pronuncia la presenza di un cordolo alto per separare le corsie. Cordolo alto per separare per le corsie. Falso è, non c'entra niente, sempre estratoio è. In presenza del segnale raffigurato si deve moderare la velocità per evitare di tamponare veicoli che procedono più lentamente. Vero è, perché wuxuu yiri in presenza del segnale raffigurato si deve wuxuu qasab nooga dhigaa moderare inaan yarayno la velocità speedka per evitare si aan uga fogaano di tamponare inaan ku dhacno veicoli baabuurta che procedono kuwaas oo ku socdo ama naga horeeya ama ku socdo più lentamente si tartiiba u socda. Vero è. Il segnale raffigurato pronuncia un attraversamento pedonale. Un attraversamento pedonale maaha meel waxaa waaye ilmo ay ku ciyaari karaan ama ilmo ay joogi karaan. Un parco gioco e waxaa lahaa un'area waxaa lahaa funshuili miya wax noocaas alla ilmaha meelaha ay ku ciyaaraan. Okay? Falso è. Attraversamento pedonale falso. Allora, il segnale raffigurato pronuncia la presenza di aeroplani a passaquota. Aeroplani a passaquota maaha. Falso è, perché kan wuxuu ku yaalaa
150 mitir intaan galeriyaha ka bixin. Galeriyaha markaan ka baxno oo wadada dhulka hoostiisa marayso waa galeriga markaan maqashiin waxaa la kulmi karnaa dabeel awood badan oo dhinac ka imaanayso. laakiin aeroplane passa quota falso waa aeroplane passa quota midka ay su'aashaas ku qoran tahay diyaarada ku dhex sawiran. Okay, quindi la risposta è falsa. In presenza del segnale ravvisato non è necessario rallentare in caso di scarsa visibilità. Wuxuu yiri in presenza del segnale ravvisato signalka markaan la kulmo non è necessario qasab ma aha yiri rallentare inaan yareyno speedka in caso di scarsa visibilità haddii ay jirto yiri aragti yari meel fog aan wax ka arki karin. Tusaale ahaan oo kale markay ceeriya ma jirto oo kale marka roob xoog la da'ayo kale markii ii sheeg cirkib oo maxaa la yiraahdaa uu wada hoglaysan yahay oo waxba meel fog laga arkayn oo kale soprattutto marka oo ay jirto ceeriyaamada. Okay, quindi non è necessario in rallente in lagu sameeyo falso. casharkeena saan ayaan ku dhamaynay. waa casharkeena 10aad. waxaan fiirinaynaa natiijada insha Allah. zero error waxba maana qaldin sida idin muuqato. waan fiirinaynaa. kan wuxuu ahaa casharkeena 10aad barashada patente B-ga argumenteena labaad qaybtiisa 10aad. Okay, insha Allah billahi karim waxaan filayaa inaa wax badan ka faa'iideen. waxaa inoo ballanaa casharkeena xiga insha Allah billahi karim. guuleysta. waxaan idin leeyahay horumar wacan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.